villa Soomaaliya oo wax ka bedeshay qorshihii bixitaanka ciidamada ATMIS maxaa isbedelo oo hadda soo kordhay warbixintan ayaynu ku soo koobi doonaa muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada oo meel fog gaarsii qaybta hoose ee commentiga aragtidaada kaga soo dhiiba daawade dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan villa Soomaaliya ayaa doonaysa inay tartiibiso bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta ATMIS iyadoo uu ka digaysa firaaq dhinaca ammaanka ah sida ku cad dukumeentiyo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. howlgalka ATMIS waxaa ka go'an in ay dalka ka baxaan 31 December markaas oo la filayo in ciidamo cusub oo tiriyar lagu bedelo howlgalka. si kastaba warqadda ay bishii hore u dirtay kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka golaha ammaanka midowga Afrika ayay xukuumadda Soomaaliya kaga codsatay in ilaa bisha September dib loo dhigo bixitaanka bar ka mid ah 4,000 oo askari oo lagu waday inay ka baxaan dhamaadka June guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. dowladda ayaa waxay hore ugu talisay qiimeyn wadajir ah oo ay la sameeyaan midowga Afrika bishii March si guud ahaan waqtiga ka bixitaanka loogu jaangooyo hadba heerka diyaar garowga dhabta ah iyo kartida ay ciidamada Soomaaliyeed u leeyihiin xaqiijinta ammaanka guud ee dalka. qiimeynta wadajirka ah ee uu ansixiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka digtay in si degdeg ah ay u dhimeyso shaqaalaha ATMIS ay horseedi doonto firaaq dhinaca amniga oo ka dhaca Soomaaliya. weligay sidan oo kale ugama walaacin jihada dalkayga ayuu yiri Mursal Khaliif oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan guddiga difaaca ee baarlamaanka oo wakaaladda wararka Reuters ay soo xigatay. midowga Yurub iyo Mareykanka oo ah labada maalgeliye ee ugu sareeya ciidamada ATMIS ayaa doonaya in la dhimo tirada nabad ilaaliyaasha sababo la xiriira walaacyo laga qabo maalgelintooda mustaqbalka sida ay sheegeen 4 ilwareed oo diblomaasiyadeed iyo sarkaal Uganda ah oo ay wakaaladdu soo xigatay. wadahadallo ku saabsan ciidamada cusub ayaa noqday kuwo adag iyada oo midowga Afrika ay doonayaan sharciyad ka xoog badan kan ay Soomaaliya ogashahay sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo muhiim ah. sidoo kale khilaaf ayaa waxa ay sababi kartaa in ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ay guud ahaan dalka ka baxaan maadaama labada dowladood ee Ethiopia iyo Soomaaliya xiriirkooda diblomaasiyadeed mugdi uu ku jiro. xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha ayaanan ka jawaabin codsiyo ku aadan inay ka falceliyaan warbixintan ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters. wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Elmani ayaa sheegay inuusan jirin jadwal go'an oo ku aadan soo gabagabeynta howlgallada balse dhammaan dhinacyadan ay ka go'an tahay in ay gaaraan heshiis caawin kara in lagu guuleysto nabadda iyo amniga Soomaaliya.